بسم الله الرحمن الرحيم chapter 6 sida loo sameeyo calaamada hormuud samtel animation intaasna sameyn doonaa doona gaarsiyo qaybteen 10keeni lixaad qaabkaas noqon doona doona gaarsiyo hormuud yuwanane oo simisi yahay xamla hormuud marka farta meeshan ay noo tahay waxaan ka dhiganaynaa Arial ka dhig Arial calaamada loo weynay 128 ka dhig meeshaan 128 meeshaan naga tir yes okay hormuud okay white waaye control z meeshaan white farta ah black ka dhig kadib hor delete kadib kan rasterize ku sameey right click rasterize then inta imao calaamadan isticmaal picture pixel 50 ahaan zero okay control D okay uda qor markaas uda then hormuud then art rasterize rasterize okay now then kadib control D deh control D markaan hormuud calaamadaas masata horta then inta imao telka sameey okay shape soo qaado jiid marka shape-ka madow ka dhig color overgiisa okay control T okay hortel sama tel kan shape-ka sameey
hortel shapekan stress ku samee control D kadib hortel okay calaamad saan u rabno fiirina markaas okay shapekan control C dheh control J hoos u dib stress ku samee kana imo okay control intixaa ku sii koosi control D kan imo okay layerkii kan okay stress deh okay then control D okay control Z stress then control Z control X control D okay calaamad hormuud sameynaysaa kadib shape soo qabso calaamad saas markay tahay waxaad mataa fx imaw kadib partner ka tag laakiin partnerka waxaa ka fiican granite tool imaw granite toolka markaa imaato waxaad ujeedaa granite toolka imaw okay kadib kan ka tag waxaa dhahdaa qaabkan u samee marka ewerka dhig okay intii ma marka infarsade calaamadan jaale ka dhig saas ee tahay calaamada 0 ka dhig kadib okay dheh
okay kan delete kan markaa saas sameyso waxaad sameyn kartaa hadaa ubaahan tahay okay markaa sidan ay tahay aad joogtid waxaad sameyn kartaa stroke hataa meeshan ku badi stroke sida ay waxa u wada bataan stroke 3 meesha ay ka tahay 2 ka dhig okay markaas qaado waxaa kaloo sameynaysaa shape-ka dhan soo qaad marka shape-ka control z control markaa z dhahdo control add z ku celi fx dheh kadib imaw granite-ka markaa dhahdo inta 0 ka dhig inta 10 ka dhig sida isku wada simaan inta imaw okay sida wax saxmaan control z inta imaw markaa kan imaw okay kan imaw okay markaas dhaado imaw kan farsi okay kan tag okay saas isugu muuji markaas dhaado kan tag shift qabo ilaa inta control e dheh okay control e markaado kan qabo adoo kan haya control e dheh control e istimaal kadib stroke sii marka shape-ka fx dheh kadib stroke dheh okay kadib kan imaw control z waxaad tagtaa alka tag kan kaba jarbo control d shan imaw okay fx stroke sii marka okay okay deh calaamad ugu dambeysa waxay tahay marka waa kan inta ka bilaab xagagii soo celi kan kasi okay kasi markaa kaasi kan imaw
براشka imaaw aaway control z control alt z waxaad imaataa waxay tahay wuxuu u baahan yahay markaasaa dhahdo aa ka dhimaato saan dhahdo fiiri wuxuu la simaa isaga waxaa leesahay control z control alt z okay then kan imaaw right click rasterize ku samee براشka gaduud ka dhig control z waxaad dhehaysaa marka saan u dhajiyey markaas u sameyso calaamadaha korabka isticmaal kadib intan leh cashirkeena qaybta koowaad ee hormuud calaamada sida loo sameeyo hormuud qaybtan intaas waa kusoo gelin doona cashiradan dalba qaybta kale xigta insha allah qaybtan meeshan ogtahay hormuud waxaan u dhimasoo iyo